بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك أنت السميع العليم رب زدنا علما. intaa kadib assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan daawadayaasheena wanaagsan meel walba aad dunida ka joogtaan waxaan idin leeyahay ramadaan kariim kuna soo dhawaada barnaamijkeenii baraarujinta bulshada gaar ahaan silsilada geedi socodka nolosha xagee ka nimid xagee u soconnaa qaybihii hore waxay ahayd qaybihii hore laba qaybood oo waxaan sameynay aan soo duubnay oo ahayd hordhac iyo qayb aan kaga sheekeynayna manhajka barnaamijkeena marka maanta waxaan guda galaynaa barnaamijkeena qaybtii ugu horeysay qaybtaas oo cinwaankeedu uu yahay waxa la yiraahdo existence ama jiritaanka ya alwujuud marka maanta qaybtaas aan ka sheekeynaynaa marka existence marka laga sheekeynayo existence waxa dib loogu laabtaa inta badan aad u falanqeeya falaasifada ama filosoofiyada dunida soo maray kuwii hore kuwii dhexe iyo suurta dhexe noolaa iyo kuwa dambe iyo kuwa xilligeena noolba marka dhammaanna waxaa la isku wada waafaqsan yahay existence ama jiritaanku inuu laba qaybood yahay labadaas qayboodna waxaa weeye in jiritaanka ilaahay iyo jiritaanka koonka jiritaanka koonka waa la isku wada waafaqsan yahay jiritaanka ilaahay qaar badan oo diidan iyo qaar waafaqsan intaba waa jiraan laakiin madmuunka kore oo guud waxa weeye jiritaanku waa labo jiritaanka ilaahay ama abuuraha iyo jiritaanka koonka the universe haddaan qeexno marka jiritaan waxaan ula jeedno ama waxa jiritaan la yiraahdo dabcan barnaamijkan luqadda aan isticmaalano ama aan ku hadlayno waa luqad Soomaali laakiin terminology-ga aan aad ku isticmaali doono ama aan isticmaalay ama aan mataqaanaa ii sheegeen ii fududahay inaan isticmaalo waa terminology-ga luqadda afka Ingiriiska marka intii awoodeyda ah waan turjumayaa inaan Soomaali ahaan u turjumo aan isku dayo inuu daawaduhu u fahmo waxa aan ka hadlayo ama terminology-gu waxa ay qeexayaan marka haddaan usoo laabto qeexidda existence origin-keedu waxay ka timid waa erey Latin ah oo origin ahaan noqonaysa existere oo macnaheedu yahay soo muuqasho to appear to arise kor u soo kicid to become inaan noqosho ahaansho to be ahaansho laakiin macnaha dhabta ah oo mataqaana ay isku soo ururayso waxaa weeye inay noqoto mid soo muuqatay yani waxaasoo sharaxaad oo dhan markii la isugu soo ururiyo waxay isugu soo ururaysaa ereyga Soomaaliyeed ee ah jiritaan in waxaan uu jiro bay isugu soo ururaysaa ujeedka loo danayna intaas weeye taariikh ahaan haddaan eegno taariikhda ugu horeysay oo la og yahay ama mataqaanaa dadka ugu horeeyay aadka uga hadlay oo taariikhda qoran baan ka hadlaynaa dadka ugu horeeyay aadka uga hadlay waxay ahaayeen Plato oo ahaa mataqaanaa filosof Aristotle iyo metaphysics-kiisii buggiisii metaphysics-ka oo aadka uga hadlay mataqaanaa isha jirka kadib ama waxa physics-ka kadib aadka uga hadlay marka taariikh ahaan waa taariikh aad u fog waa waqtigii Greek-gii hore ay noolaayeen ayuu dib ugu laabanaya marka jiritaanku waxaa loo qaybiyaa labo marka jiritaanka labada loo soo qaybiyo guud ahaan oo guud ahaan loo isugu soo laabto waxa aad loo mataqaanaa loo falanqeeyaa oo loo kala soo soocaa waa laba qaybood oo xoog ah labadaas qaybood oo kala ah material iyo idea material oo wax la taaban kara ah maadadii iyo idea oo ah fikirkii maskaxdii sababtoo ah waa laba shay oo isku xiran waay marka waan u imaan doonaa waxay kala yihiin iyo sida loo kala falanqeeyay laakiin waxaan rabaa marka hore inaan isla fahanno waxaan ka hadlayno inay yihiin maado iyo fikir materialism waxa ay ka hadlaysaa waxaa weeye wax muuqda oo jira maada ahaan u jira oo ama u jira tamar ahaan energy-gii mataqaanaa ii sheeg u jira taasoo mataqaanaa ii sheeg ninka la yiraahdo Karl Marx
oo ahaa aad wada garanaysaan ninkii mataqaanaa aasaasay communismka Karl Marx ee Jarmalka ahaa filosofkii Jarmalka ahaa ee communismka shuuciyadda wuxuu aaminsanaa mataqaanaa aragtidiisa falsafadeed ee la yiraahdo dialectical materialism does not make a distinction between being and existence. fikirkiisii ama aragtidiisii ahayd dialectical materialism ma kala socdo. waxay wax walba u aragtaa waxa weeye inay yihiin maado. waxay xoogga saaraysa maadada, fikirka xoog maysan saarayn. waxay aaminsanaayeen in fikirku uu yahay wax ka dhashay maadada, uusan ahayn wax ka duwan ama ka baxsan maadada ama materialka. marka su-aasha imaanaysa waxaa weeye marka maadaama dood ay ka timid maadadii iyo fikirkii ay dood ka timid, su-aasha imaanaysa waxaa weeye yaa soo horeeyey labadooda. yaa soo horeeyey labadooda wey. yeah. matter or idea which came first. waa dood aad mataqaanaa looga hadlo. nimanka la dhaho Marx iyo groupkiisa oo Marxista communista shuuciyadda waxay aaminsanaayeen in maadadu ay soo horeyso. that's why ay mataqaanaa xoogga u saareen maadada waxa muuqda, aysan waxa ay aan muuqan aysan xoogga u saareen. waxaana arrimahaas ku qasb waxaana arrimahaas ay u maraan waxa weeye waxaad ka fahmaysaa marka ay leeyihiin ilaahay ma jiro, maadaama ilaahay uusan la arkaynin, la taaban karin, la maqli karin, ma fahmino aysan xawaastii ama dareemayaashii qofka bini aadamka uusan ku gaari karin. marka taasi iyagoo ka duulaya bay waxay yidhaahdeen ilaahayna ma jiro, waxa kaliya oo jira waxa weeye maada wixii noo muuqda, waxaas muuqda kaliya, waxaan kale aan muuqan fikir iyo waxaas ah wax aan mataqaana sheeka Braley way yiraahdeen. sidoo kale Marx marka fikirkii saas ahaa ama falsafadii saas ahayd oo maadada xoogga la saaray waxay ku dabaqeen bini aadamkii ku dabaqeen oo waxay yiraahdeen macnee wixii fikir ku saabsan ama ku saabsan rumayn waxaan muuqanin waxba kama jiraan. marka waa in maadada la saaro. that's why haddaad u laabatay dib ama taariikhda Soviyetka aad fiirisid waxaad arkaysaa Sovietku maysan lahayn iskuulaad lagu barto social psychology wax la yiraahdo ama cilmi kasma nafeedka, cilmi nafsiga. iskuul dhan maba lahaynba ama jaamacada maysan baran jirin, sababtoo adiga iyagu dadku waxay u arkayeen bashar, dad kaliya oo maado ah jir. laakiin maadaama psychology oo maskaxda iyo dadka mataqaanaa fikirkooda iyo qaab dhaqankooda iyo waxyaabaha dambe oo waxyaabaha la arkaynin abstractionka uu xalinayay ama uu taxliilinayay iyagu maysan aaminsanin. that's why iskuul dhan maba lahaynba cilmi nafsi lagu barto. ma garana. marka waxaa kaloo iyada imaanaysa dooda ah marka sheekadani ay timaado waxay ay Marxist iyo communistaha iyo nimanka la midka waxay dood geliyaan dhahaan chicken and egg which came first. digaagadda iyo ukunta kee hor yimid? ma digaagadda hor timid oo ukunta dhashay mise ukunta dilaacday oo digaagadda dhashay? waa doodahay keenaan bay ka mid tahay. sidoo kale marka ay arrintaas waxay kaloo iyadana kula xiriiriyaan siyaasadda iyo dhaqaalaha, economic and politics which came first. dhaqaalihii iyo siyaasaddii kee hor yimid? ma siyaasadda inta power la sameeyey, dowlad la sameeyey, dabeedna warshado iyo wax la sameeyey, mise warshadihii iyo dadkii intay warshado iyo dhaqaala samaysteen ayay dowladnimo dhisteen? waa dood iyadana meesha ku jirta waay. laakiin doodahaasi waa doodo valid ah oo mataqaana muuqda oo laga qayb qaadan karo. laakiin dooda kale oo ah dhahaysa wax walba maada ha noqdo oo fikirkii dhan ha laga tuuro meesha, waxay noqdo dood ma dhalaysa. waxaana daliil u ah in Sovietku uu burburay. haddii ay doodaasi ay mataqaana ay ahayd dood miro dhal ah, Sovietku ma ilaa maanta uu sii jiri lahaa. sidoo kale waxay dooduhu soo geliyaan xisaabta iyo physics ka soo hormaray. xisaabta sida ogsoon tihiin maadada la yiraahdo xisaabta waxay ku dhisan tahay isla egyo la dhiso iyo sabley waxa af Soomaaliga lagu yiraahdo mucaadalaad equations buu xisaabyahan ku dhisayaa. waxaa laga yaabaa equationkaas in la xalin waayo oo xal loo waayo inta dadka adduunka nool, laakiin 200 sano kadib inuu soo baxo qof physicsyahan ah oo maadada physics ku takhasusay inuu markaas uu xaliyo mucaadaladii ama sableydii 200 sano ka hor la dhigay ee la xalin waayey inuu xal u helo. marka taas anagoo daliilsanayna ayaan waxaan ku doodaynaa in fikirka iyo maadadu fikirku uu soo hormaray.
fikirka iyo maadadu inuu fikirka soo hormaray baan ku doodaynaa doodahana waan keenaynaa insha allahu tacaala qeybaha dambe waan keenaynaa waxaana marka taasi waxay nagu sii mataqaana doodaasi waxayna dhex gelinaysaa marka ayna sii tiimbinaysaa waxaa weeye dooda dhahaysa ilaahay wuxuu koonkan ka abuuray eber ama waxba exnelio nothing marka sidee suurtagal ku taha marka intii doodii hadda aan kasoo sheekeynayna oo ahayd fikirka iyo maadada keebaa soo hormaray baanu dib ugu laabanaynaa si aan u fahanno in alle siduu uu koonka uga abuuray from nothing waxaa jira wax la dhaho falsafada ay aadka ay usoo qaqaadeen waxaa jira wax la dhaho sida hadda soo sheegaynay xisaabtoo kale hadda tusaalaha aan soo qaatay xisaabta equationka la qoray waxa weeye waa equation waxaa laga yaaba in la fahmi waayo ama la sharixi waayo maadaama equationkaasi la fahmi waayo micnaheedu ma aha inaysan jirin waxaa suurtagal ah in sidaan tusaalaha ugu soo qaadan muddo kadib in uu yimaado qof physicsyahan ah oo uu maadadii xaliyo oo uu meel fariisiyo ayna noqoto equationkii dansanaa inuu nolol uu soo noolaado ama la arko physics ahaan loo arko marka doodan doodayna waxaa weeye ila soco waxaan ku doodaynaa waxaa weeye fikirka iyo maadada yaa soo hormaray waxaan ku doodaynaa fikirkaa soo hormaray fikirka maadaama inuu soo hormaray waxaan kaloo aan daliilsanaynaa waxaan soo daliilsanay physicska iyo xisaabta ayaa soo hormartay sababtoo ah mucaadalaadka xisaabta waxaa lagu xaliyaa physicska waxaa weeye ma iska imaan karo haddii aan meesha aysan jirin equation la qoray oo yaalla oo u baahan in la xaliyo waa la socotaan soo ma sidoo kale aanu sheegnay in dhaqaalihii iyo waxaan kasoo sheekeynay siyaasadda marka waxaan rabnaa marka inaan hadda arrintaas waxay gogolxaar u tahay abuurka alle inuu koonkan ka abuuray eber sidee ay suurtagalka ku tahay ama waxa la yidhaahdo jirayaal aan jirin wax fikir ahaan u jira laakiin aan maaddo ahaan u jirin oo aan la taaban karin alla subxaanahu watacaala markuu koonkan abuurayey ama intuusan abuurin ka hor waxay ahaayeen jirayaal jira oo fikirka alle ku jira markuu alla go-aansaday in ay mataqaana uu koonka abuuro ayay waxay noqdeen maaddo noqdeen laakiin jiritaan ahaan waxay u jireen fi cilmi illah cilmiga ilaahay aqoonta ilaahay iyo fikirka ilaahay ayay jiritaan ahaan u jireen markaas waxaan dhahaynaa afka soomaaliga waxay ahaayeen jirayaal aan jirin jirayaal aan maaddo ahaan noqon laakiin fikir ahaan jiray waxaana afka carabigana waxaa lagu yidhaahdaa daalaat biduun madluulaat waxyaabo mataqaanaa ay sheeg jirayaal aan haysan jire dhab ah ninka la yidhahdo alimaam abu xamid alghazali ilaahay ha u naxariista iyo wadaadkan hadda nool doctor maxamed shaxruur imaam maxamed ghazali kitaabkiisa la yidhahdo the incoherence of the philosophers tafahaat alfalasifa iyo wadaadka ninka la yidhahdo doctor maxamed shaxruur kitaabkiisa the book and the quran contemporary reading labadooduba waxay fikir ahaan isla qabaan in adduunkoo dhan iyo waxa ku jiro dhan ay fikir ahaan u jireen fikirka alle ay ku jireen iyo cilmiga ilaahay markuu alla go-aansaday in uu koonka abuurana ay yimaadeen maaddo ahaan u yimaadeen jir ahaan u yimaadeen ma garata marka taas waa marka waxaa soo hormaray fikirka iyo maadada waxaa soo hormaray fikirka aydiyada ayaa soo hormartay tusaale ahaan tusaalaha noogu filan waxa dayax oo kale annaga hadda dayax markaad maqashid ama ereyga dayax aan dhahno kale ama moon aan dhahno afka ingiriiska waxaa weeye waa ereygii waa dayax laakiin jirkii waa kaas banaanka yaal wey waxaa weeye waxaa weeye xidigaas iftiimaya habeenkii iftiimaya oo dhalaalaya wey marka waxaa u baahan tahay inaad banaanka u baxdid oo ereygii iyo jirkii iswaafajisid laakiin ilaahay subxaana wa tacaala ereyga iyo jirka waa isugu mid dayax waxay alla agtiisa la micno tahay jirihii jiray uma baahna inuu alla iswaafajiyo magacii
iyo jirkii marka way labadiiba isku mid ayay u yihiin. Okay, xaqiiqda marka qaybtan kale waxaan doonayaa insha allahu tacaala inaan aan ku taxliiliyo xaqiiqda. waa maxay xaqiiqda ama waa maxay what is reality? markaan ku dhahno waxaan waa reality ama waxaan waa real, maxay tahay xaqiiqdu? xaqiiqdu waa qayb mataqaanaa muujinaysa in jirahani uu jiro marka la barbar dhigo wax la suuraysanayo. haddii aan ku dhaho anigu waan jiraa xaqiiq ahaan, waa ikanaa, waad ii jeedaa, laakiin haddii aan suuraysto aan dhaho xayawaan aan ba adduunka jirinba inaan iska suuraysto aan dhaho xayawaankaas waa un suuraystay, imaginary waay, laakiin real ma aha. taas waa marka firqiga u dhexeeya xaqiiqada iyo imaginaryga waa kaasa. dadka oo idealistiga ah ama fikirka aaminsan fikir ahaan oo mufakiriinta ah waxaa lagu eedeeyaa in aysan rumaysnayn ama ay shaki geliyaan jiritaanka ashyaada inay si madax bannaan ay ugu jiraan maskaxda. dood ayay ka keenaan. kuwa oo realistiga ahna waxay aaminsan yihiin xilliga ama aminta iyo meesha inay isku mid yihiin. iyadana waa arrin dhib oo meesha jira, waan u imaan doona waxyaabaha sidaas u jira. marka realityga marka lasii kala qaadayo waxay kala noqonaysaa ama xaqi wax la yihahdo waxay kala noqonaysaa wax la yihahdo objective truth iyo subjective. yani wax objective ah oo jiritaankiisu uu ka baxsan yahay maskaxda aadanaha ama fikirka aadanaha, wax banaanka yaala, wax aan ahayn fikir ma noqonayso, jiru wuu noqonaya. iyo wuxuu noqonayaa subjective, wax ku dhex jira qofkii oo fikir ahaan kaliya daati ah ayuu u kala qaybsamaya. marka aynu ka hadlayno arrintaas waxaynu u baahannahay aynu qeexno aan dib qeexidda ugu laabna xaq ama objective truth. xaqu marka waxa ama objective truth aan dhaho waxaa lagu qeexaa inuu yahay wax jira beyond human consciousness, wax jira ka baxsan fikirka aadanaha. that's why Allah subxaanahu wa tacaala markuu naftiisa iska cabirayay inuu jiro oo dadka uu isbarayay, markuu qur-aanka kaga hadlayay wuxuu yidhi alla wuxuu yidhi fawa rabbi الsamaa'i wاlardi inahu laxaqun mithla maa anakum tantiquun. waxaan ku dhaartay rabbiga samaawaadka, samada iyo arlada, inahu laxaqun, waa alla waa jiraa objective truth, yani waa jire ka baxsan fikirkaaga ama wax adiga maskaxdaada aad ku taswiratay ma aha, waa jiraa. mithla maa anakum tantiquun, sidaa idinku u dhawaaqaysaan. marka waxaan u baahnaa inaan kor istaagno tusaalaha alla oo soo qaatay mithla maa anakum tantiquun, sidaa idinku u dhawaaqaysaan. maxaa weeye xikmadda ku jirta maxay tahay? muxuu alla noogu soo qaatay mithla maa anakum jabaqda? sababtoo ah dhawaaqa aadanaha waa xaq, hadalka aadanaha run iyo been wuu qaadan karaa. that's why Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay markuu nabi muuse uu ka hadlayay oo nabi muuse yidhi xaqiiqun calaa an laa aquula cala allahi ila alxaq. yani waxaan isku dayayaa in aanan alle ka sheegin wax aan xaq ahayn, aanan ka hadlin waxaan xaq ahayn mooyaan. fiirso, sababta taas waxay ku muujinaysaa qofka aadanaha ah waxaa ka suurtagal ah inuu ku hadlo run iyo been, laakiin dhawaaqa jabaqda ka soo baxaysa aadanaha waa jirtaa, waa xaq waay, waa objective truth. that's why haddii aad qof gaala weydiisid iyo haddii aad qof muslima weydiisid, dhawaaqu ma jiraan, kulli waxaa la isku wada waafaqsan yahay. ilaa qofkii ugu horeeyay aadanaha ilaa iyo hadda kuwa jooga, qof walba caqli wuxuu isku waafaqsan yihiin, gaalkooda iyo muslimkooda, mulxidkooda iyo mu'minkoodaba waxaa la isku wada waafaqsan yahay jabaqdu inay jirto. sababto waa dhawaaqa hadda aad maqlaysid aan ku hadlayo, hadalkayga waa laga yaabaa in aadan waafaqdid waxna aadan waafaqin, laakiin dhawaaqa inuu jiro wax dooda kama jiro. taas oo alla subxaana wa tacaala tusaale ugu soo qaatay wuxuu yidhi alla waa jiraa sida hadalkiinu uu u jiro kale. ma garatin? marka sidee alla wax u abuuraa? marka waxaan isla soo fahanay
jiritaanka alle inkastoo xalqad gooni ah alla oga sheekayn doono xalqadan ay tahay xalqadii ugu horeysay aan kaga hadlayna jiritaanka waxaan ka sheekeynaynaa koonka jiritaankiisa iyadoo xalqad gooni ah marka qaybtan waxaan rabnaa inaan kaga sheekeyno sidee alla wax u abuuraa alla ma wuxuu intuu baxabu mataqaanaa ii sheeg walilaahi almathal alaclaa tusaalaha ugu wanaagsan allah iska leh sida dadku wax u abuuraa u dhisaan oo kale miyuu wax u dhisaa sidee wax u abuuraa maxaan ka fahmaynaa mataqaanaa qur-aanka waxyaabo kaga sheekeynaya ilaahay subxaana wa tacaala oo noo sharxaya wuxuu leeyahay wayuxiqu allahu alxaqa bikalimaatih alle markuu uu wax xaqiijinayo ama wax abuurayo ama wax rabo inuu jirsiiyo wuxuu ku jirsiiyaa kalimaadkiisa kalimaad walow kariha almujrimuun inamaa amruhu idaa araada shay-an an yaquula lahu kun fayakuun amarka alle waxaa weeye hadduu rabo inuu wax abuuro ama wax sameeyo wuxuu yidhahdaa kun dan wixii wuu ahaadaa uma baahnaba yani wax ilbiraqsi ka yar oo timekeena aanan ahayn oo ka baxsan qaabkan u fakerayna ayuu allo mataqaana wuxuu jirsiiya sidoo kale alle waatuu tusaale usoo qaateen nabi ciise inama almasiixu ciisa bnu maryama rasuulu llahi wa kalimatuhu alqaaha ilaa maryam masiix ina maryama ma ahayn waxaan ka ahayn rasuulkii alle iyo kelimadiisii fiirso kelimadiisi macnihi kelimad ahaa baa la yidhi ciise wuuna ahaaday koonkaana alle markuu uu go-aansaday inuu jiro isagoo aan soo sheegin inuu marka hore uu sii jiray fikir ahaan alle u jiray markuu go-aansaday inuu yidhaahdo alle marka macrifadii ama aqoontii iyo knowledgekii ilaahiga ahaa oo ilaahay ayaa waxay isku bedeshay transformation waxay isku bedeshay in ay jir noqoto markuu alle hadlay uu yidhi ahaada waxaas ahaada koonkan ha ahaado sidaas uu ku yimid qoraxda uu yidhi kale qoraxda timid ama dayax tusaale ahaan baan usoo qaadanay walilahi almathal aclaa marka dadka badanaa marka waxay isku qaadanaa waxa la yihahda kelima iyo kalaam afka carabiga ama tafsiirka qur-aanka labadaas erey baa ku jira kelima waa jiritaanka existence wujuudka waay sababto alla wuxuu wax ku jirsiiya ama ku abuuraa waa kelimad kalaamna waa hadalka qur-aanka taas waaye suurat albara allah subxaana wa tacaala markuu ka sheekeynay wuxuu yidhi wain axadun min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah marka ilaa uu ka maqlo kalaamkii ilaahay marka kalaamka ilaahay ama qur-aanka waa wax la maqlaayo kalimatullaahina waa jiritaankii xaq waay laa mubadila likalimaati waa la dhahay cid bedeli karta kalimaadkiisa kalimaadka alla ma laha waa koonkan oo kale haddii aan isku wada nimaano waa kalimaadkii alla way wax cid bedeli karta ma laha that's why waa inaan saas u fahno way marka waxaa kaloo u baahanaa inaan fahno kelimadda يعني تصالها الله وصو قاضي وحاوي وسو أنا إنه فانسيه كلمة دو حاوي it came from God from Allah سبحانه وتعالى but it's not part of him وحكسو بحري الله لكن قيب سجى شركي سكمد أهمها أديك هذا الكاج هذا أم أنا هذا الكي مركان هذا ووح أنا إيجاسو بحي لكن شركي قيب كمد معها مثلا ممكن مركان هذا ليج إيجا مصابين أو ama mataqaana xiidme igama soo bixin ama cad igama soo geyn waa hadal iga soo baxay kaliya dhawaaq aan sameeyay taas waa marka saas inaan u fahno loo baahan yahay wax alla ka yimaadeen weeye laakiin ma aha qayb alla ka mid ah sababtoo ah waan u imaan doonaa dadka qaarkood oo aadanaha kale ama dad kale oo diimo kale haysta waxay aaminsan yihiin adduunku iyo alla inay isku mid yihiin oo ay mataqaana adduunkanu alla yahay allana alla yahay dad aaminsan baa jira marka waxa loo baahan inaynu caqiide ahaan wax walba aynu daqiiq ka dhigno furfurno fahankeena iyo aada u sareeyo marka allay ka yimaadeen alla laakiin qaybtiisa ka mid maaha okay falsafadii hore marka sida falsafadii hore ama dadkii kirishtaanka ahaa waxay ku doodi jireen in mataqaana isheeg alla markuu koonka abuuray uu waqti qaatay sida mataqaana ku qoran bibleka kale bibleka waxaa ku qoran buugga Genesis ayadda chapterka labaad ayadda labaad saddexaad waxaa ku qoran sidatan by the seventh day God had finished the work he had been doing maalinta toddobaad ilaahay ayba wuxuu dhameeyey shaqadii uu sameynayay yidhahdeen so on the seventh day he rested from all his work maalinta toddobaadna wuu nastay then God blessed the seventh day and made it holy taas halkaan u socdaan waxay rabaan inay Sundayda ka dhigaan holy marka maalintaasna alla wuxuu ka dhigay maalin mataqaanaa
holi ah maalin la dabaaldego oo dadku ay fasax qaataan oo barakaysan marka inaga marka quraankiina Allah subhanahu wa ta'ala waa ka digaya arintaasayto wuxuu ku leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala walaqad khalaqna as-samawati wal arda wama baynahuma fi 6 ayyam wama massana min lughub كونكان سماوات كان يارلدا اي waxa u dhaxaya iyo kulligoodba 6 ayyam 6 maalmood ku haban marka very careful 6 maalmood marka lagu leeyahay ma aha maalmaha anagu aan tirsano sabti ahad isniin iyo mana aha maalmo wuxuu Allah saas u leeyahay waxa way inaga maskax ahaantayna inuu noo soo dhaweeyo inaynu fahanno laakiin maalinta Allah iyo anaga xaqiisa way kala duwan tahay Allahna horta sideedaba ma lahaba xilli ma lahaba time ma laha is outside of time and space meel iyo xilli labadaba waa ka baxsan wax xilli iyo meel la waa abuurka waa inaan saas u fahnaa way marka ujeedada aan leeyahay aayadda dhamaadkeeda waa ma masana min luqub wax oo culaysa ama aan ka qaadayna ma laha ama wax dhiba ama aan u baahan inaan nasano ma laha dhanka kale science-ka hadda jira ama physics-ka astrophysics-ka iyo cosmology-ga iyo dadka khubarada adduunka hadda jira waxay xaqiijinayaan maalin walba waxay helaan ay sheegaan inay heleen galaxies of billions and trillions and zillions maalin walba galaxy cusub inay heleen marka taas waxay daliil u tahay alle energy-giisa inuusan dhammaanayn tamartiisu inaysan dhammaanayn waxa ay dadkii hore ay ka sheegeen ama kristaan ha noqdaan ama falaasifadii hore ha noqdaan oo ah inuu nastay oo daalay iyo waxyaabahaas wax ka jira ma laha waxa abuurka alle waa socda energy-ga alle dhammaan mayso awoodda alle ma dhammaanayso infinite way wax loo barbardhigi kara ma laha unlimited ma fahanti marka waxaa loo baahan yahay qofkaagan muslimka ah ama adduunkan jooga ama aadanaha ah maskaxda yartaa leh inaad fahantid wax aad isku barbardhigaysid in aysan wax isku barbardhigi kara aysan ahayn okay marka perfect idealism يعني فكر أهان فكرة كامل فكرة لمايسترن مركا أينو كهالنا وحاوي وحانو تاس أقدرنا يعني وحاوي الله ما حانو كسو هاللين أيدي ذي رصعه ولي كمان بحين موضوعي جرتان كماتيريال كي أيدي ذي كمان بحين أيدياليزم كي ماتيرياليزم كي مركا أينو وحاصرنا أينو صوت الضمنه وحينو كنا ذينا إن الله وياي the perfect idealist waxa jira oo dhan Allah subhanahu wa ta'ala koonkay inuu yahay waxa kali ah idealist perfect kaamil because Allah waxa kali waxa way awooda in fikirkiisu ay noqoto xaqiiqo adiga bini aadamka oo aadanaha dabcan waa lagu karaamay walaqad karamna bani aadam waa laga soo saaray abuurka kale oo waxaa noqotay aqliga lagu siiyay oo alla qayb mataqaana xaqiisa ka timid ruuxdii ayaa lagu riday oo qaybtan wax kala garanaysa oo san xayawaanku lahayn malaa'igtu lahayn qaybtan wax kala soocaysa qaybtan wax kala dooranaysa dhahaysa waxaan waan rabaa waxaan ma rabo qaybtan fikirka abstractionka fikiraysa wax balan garanaysa oo alla xaqiisa ka timid ayaa lagu siiyay laakiin 100% ma tihin waxa 100% kaliya ama kaamil waa Allah subhanahu wa ta'ala الله نوح كامل كيا بكس فكر كي صورنا حقيقة نقرأ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون كن بقول كليه وإحنا وأهانايا مركا وأيديالي استكليه ما تقانا أي شيء 100% أما perfect عليه كمان وصار شيء الله تام سبيس ملها حلو بهاي إن قاركود أي عقيدة إسكاسحان إن أيسن ما تقانا كون فكرين أيسن أوران الله سمدو جواك العمل أما سماء الدنيا وأوسو دجا أما waxyaaba soo kala sababta markaad the second ka aad alla soo dhex gelisid makhluuqiis waxa ka dhigtay makhluuqa ka dhigtay abuuraha waa ina muhiim waa ina kala saartaa khaaliqa iyo makhluuq sababta alla hadii aad soo dhex gelisid khaaliqi makhluuqiisa waxa noqonaysa time ayaa ku soconaya markaas wax walbo time ku socona wuu halaagsamaya allana ma halaagsamaya marka waxa loo baahan yahay aad in la saga fiiriyo kullu shay'in halikun illa wajha wax walbo halaagsamaya waxaan wajiga alla ka ahayn marka alla kaynuunadiisa ama jiritaankiisa waa jiritaan isaga kali oo aan shaqo ku lahayn annaga inteena kale adduunkan joogta ama aadanaha noqdaan ama kawankan ha noqdo ama xayawaan ha noqdo ama malaa'ig ha noqdo waxayna kulli ku qasbannahay saacad baan nagu socota aanu leenahay ha kala duwanaato saacadda malaa'igta waxa laga yaabaa inay teena ka duwan tahay
kan xayawaanku teena ka duwan yahay tan galaxy-gu naga duwan yahay galaxy-yadu kala duwan yihiin kala fog yihiin malaayiin balaayiin zillions trillions space iyo time iyo light years iyo inuu u kala dhaxeeyo laakiin waxa at the end of the day kulligood kulli shayin haalikun ilaa kulli waa halaagsamayaan sababtay ku halaagsamayaan waxaa weeye time ayaa ku socda allana time kuma socdo huwa alawal walakhir that means he has no time he is the first and he is the last فهمنا marka waa inaan saas u fahanaa waay annagana aadan haddaan ahaan in yax baan ka soo qaadanay oo idealism baa alla naga siiyey liman shaaa minkum an yastaqiim faman shaaa falyu'min waa mashii'adii malaa'igta mashii'a ma laha waxaa waa mataqaana ay sheeg laa yacsuuna allaha maa amarahum ma yafcaluuna maa yu'maruun wixii la amray unbay samaynaya qaar baa sujuudsan maalinta la abuuray ilaa iyo maalintii ka dhiman qaar baa rukuucsan sida uu nabigu noo sheegay salawatullahi wasalaamu calayh marka waqtigu aad buu noogu socdaa gabagabadii marka waxaan kusoo gabagabaynayaa marka oo aan rabaa inaan mataqaana mawduucan aan kusoo gabagabeeyo conclusionkiisu dhowrkaas aayadood oo aan rabo aan ku sheegayo waxaa weeye oo aan ku adkeynayo alle wax walba oo inaga inoo ah mataqaana ay sheeg present ama xaadir inoo ah ama mustaqbal inoo ah isagu waxay u yihiin maadi u yihiin wax tegey ma fahmin isagu ma laha wax uu sugayo mustaqbal usoo socda ama xaadir markaas jira ma jirto so that's why quraanka yana baraya Allah subhanahu wa ta'ala aayadaha ugu dambeeyay suuratu zumar wuxuu ku yiri wanufikha fi suuri fasa'iqa firso u dhadanso wanufikha fi suuri fasa'iqa man fi samawati man fi al-ard suurkii waa la afufay kulli waa ficil maadi waa فصعق من في السماء وحاس وحي قفل بصمد إيه الله كنولا إلا ما شاء الله وأشرقت الأرض وفعل ماضي ما فهم أوفرس ووفيت كل نفس ما عملت نفل بوحلوه في وحي أي شقيستي وسيق الذين كفروا إلى جهنم قال دي جهنم اللقي وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة كوي الله كبقى جنة دي اللقي آيات سؤال وحاوبها لنا داود إن كتدبرنا أو فهمنا وحاك فهمنا يعني الله ayaanu ka fahmaynaa sifaadkiisa ayaanu ka fahmaynaa iyo weynaantiisa iyo inuu mataqaana ka baxsan yahay timeka iyo spaceka marka insha Allah taala waqtiga ayaa nagu dhamaaday aad baa mahadsantihiin waa idinkaga mahadcelinaya dhageysigiina wacan insha Allah taala xalqada ku xigtayna kuwada kulmi doono aad baa mahadsantihiin waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo